waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah sheekooyinkii ugu argagaxa badnaa ee aad weligaa maqasho. Waa dhacdo la sheegay inay ku dhacday sheekh lagu magacaabo Cabdilmajiid al-Baghdaadi iyo saaxiibkii. Bilowgii wax walba waxay u muuqdeen kuwo caadi ah, laakiin hal habeen ayaa noloshooda dhanka kale u rogtay. Habeenkaasina waxa uu ku noqday dhacdooyin ay muddo badan ka sheekeeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada saaxiibayaal degalkeena Ciid Media. haddaba intaynaan qisada caawa u gudagalin saaxiibayaal waxaynu ka codsanaynaa inaad channelka subscribe soo tirahdaan fiidiyoogana like saadhaan aynu u gudagalna qisadeena caawa. dalka Tunis waxaa ku yaala deegaan lagu magacaabo Maxamadiya, kaas oo caan ku ah dhismayaal duug ah iyo xaafado sabool ah. dadka ku nool deegaanka Maxamadiya waxay muddo dheer ka sheekayn jireen dhacdooyin qarsoodi ah kuwaas oo la xiriira guryo cidlo ah oo ku yaala gees ka mid ah deegaankan Maxamadiya. qaar badan oo dadka ka mid ahna waxa ay aaminsanaayeen in goobaha ay ku sugan yihiin makhluuqyo aan la arkayn, halka kuwa kalena ay u arkayeen sheekooyin dadka lagu cabsigeliyo uun. deegaankan Maxamadiya waxaa ku noolaa wiil lagu magacaabi jiray Maxamed. waxa uu la noolaa qoyskiisa oo ka kooban hooyadii iyo walaalkii ka yar, halka aabihii uu sannado ka hor geeriyooday. Maxamed iyo qoyskiisa noloshu ma aysan ahayn mid sahlan, waxayna la daalaa-dhacayeen duruufo dhaqaale oo adag. sidoo kalena waxaa la sheegaa in Maxamed uu la tacaalayay xanuuno nafsi ah, balse dadka badankoodu arrintaa muhiimad aad u weyn ma siin jirin. haddaba maalin maalmaha ka mid ah Maxamed keligii ayaa socod iska soo aaday, isagoo dhex maraya waddooyinka xaafadaha deegaanka Maxamadiya. intii uu socday ayaa uu arkay guryo muddo dheer cidlo ahaa. guryahaasi waxa ay ahaayeen guryo darbiyadooda ay dildilaac aad u weyn sameeyeen, islamarkaana aad moodid inay hadda soo dumayaan, halka dhanka kalena albaabadooda uu burbur aad u weyn ka muuqday. Maxamed markii uu guryihii soo hor istaagay cabsi aad u weyn ayuu dareemay. haddana xiisaha ayaa ku kallifay inuu gudaha u galo mid ka mid ah guryahaas. Maxamed markii uu ka tallaabay albaabka guriga waxa uu dareemay jawi aan caadi ahayn. gudaha gurigu waxa uu ahaa mid cimilo ahaan ka duwan deegaanka intiisa kale, waxa uuna ahaa mid aad u qabow. Maxamed mar walba oo uu tillaabo u qaado guriga gudihiisa waxa uu dareemayay in sida laab kasta oo guriga ah laga daawanayo, inkasta oo uusan cidna arkayn. maalintaa kadib Maxamed dib uguma uusan soo noqon gurigoodii. aynu tagna dhanka kale ee xaafadda. saacadihii ugu horreeyey qoyska Maxamed aad ugama walwalin maqnaanshaha wiilkooda, waxayna u maleeyeen in uu saaxiibadii la maqan yahay. laakiin markii habeenkii la gaaray oo uu soo noqon waayey, walwalkii ayaa ku kordhay xaafaddii. maalmihii xigay qoyska iyo dadka deegaanka ayaa bilaabay inay baadigoobaan Maxamed. waxa ayna ka raadinayeen waddo kasta, xaafad kasta iyo meel kasta oo ay filayaan inuu joogo, balse raadkiisa lama helin. maalmihii waxa ay isku beddeleen toddobaadyo, toddobaadyadiina waxa ay isku beddeleen bilo, laakiin weli Maxamed jaan iyo cirib meel uu dhigay lama helin. haddaba sannadkii koowaad waa uu dhammaaday, kadibna kii labaad ayaa dhammaaday. dadkiina waxa ay bilaabeen in ay ka quustaan helitaanka Maxamed, laakiin waxaa jiray hal qof oo aan ka quusan inuu helo Maxamed, waana Maxamed hooyadii. Maxamed hooyadii waxa ay aaminsanayd in waayitaanka wiilkeeda uu wax qarsoon ku lug leeyahay. mar kasta oo ay maqashana sheekooyinka laga sheegayo guryaha cidlada ah ee ku yaala deegaanka bannaankiisa, shakigeedu waa uu sii xoogsanayay. waxa ayna aaminsanayd in wiilkeeda lagu waayay goobtaas mamnuuca ah. dhacdadaasna waxaa ka soo wareegtay muddo 3 sano ah. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa si kadis ah waxaa xaafaddii lagu arkay nin muuqaal ahaan u eg Maxamed. markii ay qoyskiisu arkeen waa ay yaabeen, waxa ayna xaqiijiyeen in qofkani uu dhab ahaantii yahay Maxamed. xaafaddii oo dhanna farxad ayaa isqabsatay. hooyadiina waxa ay la ilmaysay soo noqoshada wiilkeeda, laakiin farxaddaasi ma aysan noqon mid muddo dheer sii waarta. muddo yar kadibna waxa ay dareemeen in Maxamed aanu ahayn qofkii ay horey u garanayeen. waxa uuna la soo baxay shakhsiyad aanay horey uga aqoon, isaga oo noqday qof aamusan, dadkana aad uga fogaada. mararka qaarna isaga oo meel fadhiya ayuu iskaga qaylin jiray codad cabsi leh. hurdada uu habeenkii seexan jirayna waa ay yaraatay, halka mararka qaar la arki jiray isaga oo keligii isla hadlaya, halka dhanka kalena indhihiisu mararka qaar ay u muuqan jireen kuwo aad u xanaaqsan. wuxuuna si la yaab leh ugu fiirsan jiray hooyadii iyo walaalkii, taas oo cabsi ku abuurtay qoyskii. Maxamed marka la weydiiyey halkii uu ku maqnaa 3 sano ee lasoo dhaafay, waxa uu sheegi jiray inuusan waxba ka xasuusan halkii uu ku maqnaa iyo waxa ku dhacayba. muddo yar kadib qoyskii waxaa ku bilowday dhacdooyin yaab leh. haddaba maalin ay Maxamed hooyadii cuntada diyaarinaysay ayaa waxa ay si lama filaan ah timo dhaadheer ugu dhex aragtay weelkii ay cuntada ku karinaysay. Maxamed hooyadii arrinkaa waa ay la yaabtay, balse waxa ay ka soo qaaday arrin si kadis ah ku dhacay. laakiin dhacdadaasi halkaa kuma joogsan, mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraadba waa ay soo laabatay. Maxamed hooyadii waxa ay bilowday inay ka walwasho arrinkaa. dhacdooyinka yaabka lehna kuma ekaan timaha oo keliya, balse habeenada qaar hooyadu waxa ay maqli jirtay codad aanay garanayn meesha ay ka imaanayaan.
mararka qaar codadkaasi waxa ay u ekaayeen sida dad wada sheekaysanaya oo kale. Dhacdadii ugu yaabka badneedna waxa ay dhacday maalin galab ah. Hooyada Maxamed iyo saaxiibteed ayaa waxa ay wada fadhiyeen qolka fadhiga, iyaga oo iska sheekaysanaya wax walbana waxa ay u muuqdeen kuwo caadi ah. Laakiin si lama filaan ah ayaa waxa ay u arkeen 3 nin oo dhaadheer, kuwaas oo hortooda ka soo muuqday. Labadii dumar ahaa markiiba waa ay naxeen. Raggaasina waxa ay lahaayeen muuqaal aan caadi ahayn. Jirkoodu waxa uu ahaa mid aad u dheer, wejiyadoodana waxaa ka muuqday dhoolla caddayn cabsi leh, halka indhahooduna ay u muuqdeen kuwo aan si dabiici ahayn godka uga soo baxaya. Waxa ugu yaabka badanna waxa ay ahayd in habka ay u dhaqaaqayaan aysan u muuqin kuwo caadi ah, iyaga oo u muuqday sidii dad hawada dhex sabaynaya oo kale. Labadii dumar ahaa waa ay daawanayeen wax kasta oo dhacaya, iyaga oo cabsi la gariiraya, balse muddo gaaban kadib 3dii nin si kadis ah ayay u baabi'een. Wax raad ahna goobtii ugama aysan tegin. Dhacdadaas kadib cabsi weyn ayaa ku dhacday hooyadii Maxamed. Waxa ayna rumaysatay in wixii ay aragtay ay xiriir la leeyihiin wixii ku dhacay wiilkeeda sanadihii uu maqnaa, iyada oo dhanka kalena ogaatay in dhacdooyinkan yaabka leh ay bilowdeen maalintii uu Maxamed guriga dib ugu soo laabtay. Markasta oo uu Maxamed guriga joogana, codad aan la garanayn ayaa guriga qolalkiisa laga maqli jiray. Dhibaatada ugu weyn ee qoyskan haysatana waxa ay ahayd maadaama ay yihiin qoys sabool ah inaysan awoodin in ay ka guuraan guriga, iyaga oo ku khasbanaa in ay ku noolaadaan cabsidan joogtada ah. Maxamed hooyadii waxa ay go'aansatay inay si joogto ah guriga quraan uga shido maalin kasta, iyada oo rajeynaysa in xasiloonidii guriga ay maalin uun dib u soo laabato. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, Maxamed walaalkii ka yar ayaa waxa uu ku tukanayay qolalka guriga ka mid ah. Kadib markii uu salaada ka baxay ayaa waxa uu arkay bisad madow oo qolka dhex hurda. Wiilkii yaraa bisadii qolkii waa uu ka eryay, laakiin markii ay albaabka ka sii baxaysay waxa ay ku soo eegteen indha cabsi leh, taasoo wiilkii cabsi aad u daran ku abuurtay. bisadii waxa ay u dhaqaaqday dhankaas jikada. Maxamed walaalkiina waa uu ka daba dhaqaaqay isaga oo isku dayay in uu guriga ka saaro. Haddaba markii uu jikadii ka daba galay bisadii waa ay qarsoontay, waa uuna ka waayay goobtii. Maxamed walaalkii dib ayaa uu soo noqday isaga oo aad u yaaban, dhanka kalena cabsi aad u daran dareemaya. Maanta oo dhan maadaama aynu ku soo celin karin magaca Maxamed walaalkii, waxa aynu ugula baxaynaa magaca Jaamac. Haddaba Jaamac maalin ayaa waxa uu ku riyooday riyo aad u cabsi badan, isaga oo ku riyooday nin aad u madow, dhanka kalena ay gacmihiisu aad u waaweyn yihiin, kaas oo hurda isla meesha ay bisadu hurday. Ninkii waa uu soo kacay, waxa uuna u soo dhaqaaqay dhankii Jaamac, isaga oo ku qaylinaya maxaad hurdada iiga kicinaysay. Kadibna afka ayaa uu kaga dhuftay shay bir ah oo aad u culus. Haddaba Jaamac hurdadii ayaa uu ka soo booday, waxa uuna is arkay isagoo afkiisu dhiigaya, ilkihiisa mid ka mid ahna jaban yahay. Arrintii cabsida lahayd halkaa kuma joogsan, laakiin habeenada ka mid ah, Jaamac waxa uu isku diyaarinayay in uu seexdo isaga oo keligiis ah. Saacaduna waxa ay ahayd wakhtiga dambe ee habeenkii. Haddaba waxaa si tartiib ah loo soo garaacay albaabkii qolkiisa. Jaamac ugu horreyntii waxa uu mooday hooyadiis oo hurdada ka soo kacday, isla markaana cod dheer ayaa uu ku yiri waa kuma. Laakiin qofkii albaabka dhinaciisa kala taagnaa uma uusan jawaabin. Wax yar kadib mar labaad ayaa albaabkii la soo garaacay. Jaamacna isla su'aashii ayaa uu ku celiyay isaga oo ku yiri waa kuma. Laakiin haddana mar kale qofkii albaabka dhinaciisa kala taagnaa uma uusan jawaabin. Markii saddexaad ee albaabka la soo garaacay, Jaamac wadnihiisu aad ayuu u garaacmay, cabsi aad u weynna waa uu dareemay. Laakiin markan waxa uu go'aansaday in uusan wax hadal ah odhan, isla markaana uu dhegta u raariciyay codka bannaanka ka imaan doona. Haddaba waxa uu maqlay sanqar iyo qof u soo socda dhanka albaabka. Jaamacna waa uu kacay isaga oo furay albaabkii, laakiin waxa uu soo galay noole aad u yaab badan, kaas oo ku soconaya 4 lugood, dhanka kalena bilaatimo ah. Noolahaas indhihiisana waxaa ka da'ayay dareere aad u madow. Noolihii waa uu soo galay, waxa uuna u soo dhowaaday Jaamac, isaga oo marba marka ka dambaysa dhankiisa tallaabo u soo qaadayay. Jaamac cabsi darteed goobtii ayaa uu ka dhaqaaqi waayey, laakiin nasiib wanaag noolihii waxba kuma aanu samayn, oo intuu si aad u xun u eegay ayaa uu iskaga tegey. Jaamac hooyadii marka ay ogaatay waxa wiilkeeda ku dhacay, cabsi iyo walbahaar aad u daran ayay dareentay. Waxa ayna go'aansatay in ay caawimaad raadsato. Haddaba dadkii deegaanka qaarkood ayaa kula taliyay in ay u yeedho sheekh lagu magacaabo Cabdilmajiid al-Baghdaadi. Cabdilmajiid waxa uu caan ku ahaa aqoonta uu u lahaa caawinta dadka la kulma dhibaatooyinkan oo kale. Sheekh Cabdilmajiid, isaga oo dareemayay in arrintu mid fudud aysan ahayn, ayaa waxa uu horay u soo watay nin kale oo ay saaxiib ahaayeen, kaas oo lagu magacaabi jiray Garaydi. Labadooduna waxa ay gaareen gurigii qoyska xilli maqrib ah, iyaga oo aan ogeyn in habeenkaasi uu noqon doono mid noloshooda dambe aysan ilaawi doonin. Haddaba Sheekh Cabdilmajiid iyo saaxiibkii markii ay bilaabeen akhrintii Qur'aanka, ayaa si lama filaan ah korontadii guriga oo dhan u tagtay. Gurigii oo dhanna mugdi ayaa uu noqday. Daqiiqado kooban oo aamusnaan ah kadib,
waxa ay maqleen sanqar culus oo ka imaanaysa saqafka sare ee guriga, iyadoo sidii qof ama wax weyn uu guriga qaybtiisa sare ku dul socdo. Daqiiqado yar kadib korontadii guriga waa ay soo noqotay, laakiin markiiba waxa ay indhahoodu qabteen raadad cabsi leh, kuwaas oo agtooda maray. Hooyadii Maxamed cabsi darteed waa ay istaagtay, halka Sheekhi Cabdilmajiid al-Baqdaadi iyo saaxiibkii ay go'aansadeen in ay quraanka joojiyaan. Haddaba qoyskii waxa ay go'aansadeen in ay habeenka xaafad kala soo seexdaan, laakiin Maxamed habeenkii oo dhan guriga ayaa uu joogay. Waagii markii uu baryay Sheekh Cabdilmajiid al-Baqdaadi iyo saaxiibkii, waxa ay dib ugu soo laabteen gurigii si ay quraan akhriskooda horay ugu sii wadaan. Markii ay gudaha u soo galeen gurigii, waxa ay arkeen Maxamed oo keligiis fadhiya qolka fadhiga, muuqaalkiisuna aanu u muuqan sidii qof caadi ah. Isla markiiba waxa ay bilaabeen akhrintii quraanka, laakiin wax yar kadib Maxamed si kedis ah ayaa uu u sooxay, waa uuna miyir beelay. Sheekh Cabdilmajiid iyo saaxiibkii ma joojin quraan akhriskii, waxa ayna sii wadeen akhrintii quraanka iyaga oo codkooda sii adkaynayay. Muddo yar kadib Maxamed waxa uu bilaabay inuu qoslo qosol cabsi leh. Qosolkaasina waxa uu cabsi ku beeray dadkii qolka joogay oo dhan. Laakiinse Sheekh Cabdilmajiid al-Baqdaadi ayaa si adag u weydiiyey, kuma ayaa tihiin, maxaadse rabtaan? Jinkii Maxamed ka dhex hadlayay waxa uu ku jawaabay, u baxa bannaanka. Sheekhii waxa uu bilaabay inuu quraankiisa sii wato. Daqiiqado yar kadibna Maxamed waxa uu bilaabay inuu si tartiib ah miyirkii dib ugu soo noqdo. Sheekh Cabdilmajiid ayaana si degan wejigiisa u eegay, waxa uuna xaqiijiyey in xaaladiisu ay hadda degan tahay. Maalintaa kadib wax walba waxa ay u muuqdeen inay sideeda caadiga ahayd ku soo noqdeen. Cabsidii iyo dhacdooyinkii argagaxa lahaana si tartiib ah ayay u yaraadeen. Qoyskuna ugu dambeyntii waxa ay heleen xasiloonidii ay muddo badan baadigoobi jireen. Laakiin arrintu halkaa kuma aanay istaagin. Maalin maalmaha ka mid ah, Maxamed hooyadii oo guriga joogta ayaa waxaa si xoog leh loo garaacay albaabkii suuliga. Kadib hooyadii waa ay soo kacday iyada oo damacsan in ay qofka suuliga ka furto, iyada oo u malaynaysa inuu qof suuliga gudaha kaga jiro, isla markaana uu ku soo xirmay. Laakiin markii ay damacday in ay suuliga furto, waxa ay ogaatay in uu suuligu cidlo yahay. Iyada oo yaaban ayayna goobtii iskaga soo tagtay. Maalmo kadib Sheekh Baqdaadi ayaa gurigii dib ugu soo laabtay si uu quraan akhriskii hore ugu sii wado. Haddaba isaga oo fadhiya meel suuligii u dhow ayaa ay maamadii soo hormartay. Waxa ayna ku tiri, Sheekhow iga raalli ahow, waxa aan rabaa in aan suuliga galo. Sheekhii haye ayaa uu ku yidhi, waa uuna soo kacay isaga oo soo fadhiistay meel albaabka hore ee guriga laga galo u dhow. Haddaba muddo yar kadib waxaa la soo garaacay albaabkii guriga. Sheekhii markii uu albaabkii furay waxa uu arkay in ay tahay Maxamed hooyadii. Haddaba Sheekhii isaga oo yaaban ayaa uu weydiiyey, miyaadan ahayn qofkii suuliga galay? Laakiin Maxamed hooyadii waxa ay ugu jawaabtay maya. Sheekh Cabdilmajiidna waxa uu fahmay in ciddii suuliga gashay ay ahayd jin, isla markaana aanay ahayn Maxamed hooyadii. Sheekhii quraankii ayaa uu iska sii watay. Markii uu dhammeeyeyna waxa uu aaday gurigiisii. Haddaba Sheekhii markii uu gurigiisii yimi waa uu seexday, laakiin waxa uu ku riyooday riyo aad u cabsi badan. Waxa uuna ku riyooday isaga oo galaya guryihii laga guuray ee uu jinku deganaa. Sheekhii markii uu hurdadii ka soo kacay waxa uu u yimi Maxamed hooyadii. Waxa uuna wax ka weydiiyey qolalkii iyo godadkii jinka ee uu ku riyooday. Maxamed hooyadiina waxa ay tustay meelihii ay ku yaaleen. Haddaba maalinkii labaad markii salaada subax laga soo baxay, Sheekh Cabdilmajiid al-Baqdaadi iyo saaxiibkii Gareydi waa ay soo raaceen. Waxa ayna go'aansadeen in ay galaan guryahaas laga guuray iyo qolalkaas. Haddaba qolalkii waa ay galeen, waxa ayna ahaayeen qolal aad mugdi u ah. Kadibna waxa ay gaareen guri aad u weyn kaas oo ku dhex yaala goobtaas. Gurigaasna waxaa ka soo baxayay codad cabsi leh. Muddo yar kadib labadii nin waxa ay arkeen meel u dhow oo dab laga shidayo, iyo noolayaal kala nooc ah oo dabka agtiisa taagan. Noolayaashaasi waxa ay ahaayeen kuwo aan dhulka ku soconayn, balse hawada dhex sabaynaya. Waxaana ka mid ahaa noole aad u dheer kaasoo madaxiisu aad u yar yahay. Sidoo kalena waxa uu ahaa mid bilaatimo ah, halka indhihiisu ay u muuqdeen kuwo cabsi leh. Noolahaasi noolo kale oo 4 lugood leh ayaa uuna dusha ka saarnaa. Isaga oo caraysan ayuuna noolihii kale ku yidhi, miyaysan ogeyn in aan bini'aadamka loo oggolayn in ay goobtan soo galaan? Laakiin Sheekhii waxa uu weydiiyey arrintii ku saabsaneyd Maxamed. Noolihii waxa uu ku jawaabay, ninkaasi waa uu noo yimi, waxa uuna bilaabay inuu annagana dhibo, isla markaana waxyeello noo geysto. Annaguna waa qabannay, waxaan haynay muddo dhan 3 bilood. Kadibna waannu iska sii daynay, laakiin gurigoodii ayaannu degnay, kamana baxayno. Haddaba Sheekhii markii uu intaa ogaaday waxa uu weydiistay noolihii meel uu ka baxo. Noolihiina waa uu u tilmaamay. Sheekh Cabdilmajiid iyo saaxiibkii Gareydi waa ay soo raaceen. Waxa ayna soo qaadeen waddadii uu nooluhu u tilmaamay. Laakiin mar qura ayaa Sheekh Baqdaadi waxa uu maqlay qayle xad dhaaf ah. Markii uu gadaal fiiriyeyna waxa uu arkay saaxiibkii Gareydi oo la sii jiidanayo.
haddaba sheekh Baqdaadi goobtii waa uu iskaga soo baxay, waxa uuna la wadaagay dadkii deegaanka qisadii ku dhacday. Laakiin dhowr bilood kadib sheekh Baqdaadi ayaa gurigiisii loogu tegay isaga oo meyd ah, gacmaha iyo luguhuna waa ay ka go'naayeen, waxaana la sheegay inuu jirkiisu si daran u waxyeeloobay. cidda sheekh Baqdaadi dishayna ilaa maanta waa mid aan la ogeyn. haddaba saaxiibayaal aad ayaad mahadsantihiin, qisadana caawana halkaas ayay noogu eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.